Assalaamu calaykum dhammaan mucaashaqiinta xiisaysa Konami ama eFootball meel walba adduunyada ku joogtaan kusoo dhawaada muuqaal cusub halkaad naga daawanaysaan waa Yaki Boy Gamer aniguna waxaan ahay saaxiibkiin walaalkiin Yaki Boy Gamer maantay iyo muuqaal cusub muuqaalkan waxaan kugula wadaagi doonaa xogihii u dambeeyay oo ku saabsan eFootballka xogahan aan kula wadaagayo ma ahan xog ciyaar ah waa xog muhiim ah oo ku saabsan eFootballka saawad ogtiinba khamiistan ama khamiista dambe waxaa dhici doonaa update farshankiisu yahay 4.2.0 updatekan waxaa la filayaa 5 bisha oo ku aadan beri oo khamiis ah inuu dhaco ama 10 bisha ama 9 bisha inuu dhaco updatekan horta shirkadda waxay sheegtay inuu ku bilaaban doono 5 bisha ilaa wuxuu socon doonaa 12 bisha hadda aan ku jirno bisha 12 ama December waxyaabaha ugu muhiimsan oo dadka badankooda ay hadalhayaan waxaa ka mid ah in applicationka loogadiisa hore la bedeli doono loogada hore marka aan ku dhahayo waxaan ka wadaa aabka hore wajahada hore wuxuu u muuqan doonaa 3 nooca koowaad oo yahay in sidaa laga soo dhigo oo Leo Messi markaasi afka hore la soo saaro maadaama uu Messi uu contract kula jiro loogada labaad waxay tahay in Messi iyo Suarez iyo Neymar inta la soo saaro qaybta jiniga ana geeska kale laga soo saaro sida markii hore oo muuqaal Konami update sameysay oo sidaas laga soo dhigay haddana taas waa la filayaa in laga dhigo ama sidan in lagu soo dhigo oo Neymar in la soo saaro oo markaasi gameka loogadiisa hore sidan ay ahaato saddexdan ayaa loo saadaalinayaa in markaasi wajahada hore ee gameka laga soo dhigo waxyaabaha kale oo ugu muhiimsan waxay tahay caawi asxaabta jeceleed inay ku ciyaarto gacanka ama taleefankooda ay ku xirtaan gacanka hore waxay ahayd gacanka in application iyo bluetooth iyo waxyaabo badan aad wada dheer inaad soo marto si aad ugu xirato gacanka aad soo iibsatay shirkadda Konami caawashadaas waa la gaarsiiyey waxayna sameyn doontaa taas mid ka fudud tusaale ahaan gacanka ayaad soo qaadanaysaa si toos ayaa adiga applicationka ugu xiranaysaa waxaa la sameyn doonaa qayb gacankaas qaabilsan oo markaasi toos aad uga tagi doonto oo meeshaasi ugu xiran doonto kulley toole waxaa kaloo jirto in markaasi adoo taleefanka ku ciyaarayo aad ku xiran karto qof markaasi TV ku ciyaarayo aad ku xiran karto maxaa ku dhahay adoo taleefanka ku ciyaarayo waxaa ku xiran kartaa qof markaasi TV ama ku ciyaarayo TV qofka ciyaarayo ayaad ku xiran kartaa dad badan ayaa fahansaneen marka muuqaalkan saa hadda ugu jeedaan qofkan wuxuu ku ciyaarayaa taleefankiisa qofkan kalena wuxuu ku ciyaarayaa sida shaashada ugu jeedoba TV ayuu ku ciyaarayaa waana isku xirteen waana caadi shirkadda update-kaas ayay soo wadaa inay keento waxaa kaloo isla eegi doonaa gameka markii la soo update gareeyo waxaa jirto 2 ciyaaryahan oo free la isku siin doono labada ciyaaryahan waxay kala yihiin Lionel Messi iyo ninkan kaleeto la yiraahdo Kubo labadan qof ayaa horta free la isku siin doonaa oo marka aad soo gashaba hore laga siin doono marka game aad update-ka kadib waaye update-ka hadduu khamiistan dhaco waa horaa laga sii doonaa haddii khamiista dambe uu dhacana adiga waa lagu siin doonaa waxaa kaloo ugu muhiimsan Messi horta kan la isiin doono sidan ayuu u muuqan doonaa Messi-gan waaye sidii update-kii kan ka horeeyay oo kale oo Messi la isiinay Musow meeqa Messi ah haysataa walahi shirkaddan aaday markaasi Messi noogu daldasho ma fahantay Musow adig Messi meeqa haysataa daraada u dambeysay waxaa la keenay MNS Messi wuu ku jiray asoo gaarayo 108 haddana kan ayaa la sheegayaa kan marka meeqa uu gaarayaa ratingkiisa kan yow 97 ayuu ku bilaaban doonaa wuxuuna ku dhammaan doonaa 102 sidii Messigii hore ee update-kan oo kale marka xogihii ugu muhiimsanaa ayaan kula wadaagayaa xogahan ciyaar ka dhigan kambeynada iyo wixii dhan waa la qaadayaa waxaa la keeni doonaa kambeyn cusub kambeynka waxaa ka faa'iidi doonaa wax la yiraahdo 100 coins iyo GB iyo trading wax badan ayaan ka faa'iidi doonaa ama waxaa kaloo la sheegay in la keeni doono kambeynkan waxaan ka faa'iideynaa 200 coins
iyo 720,000 oo GB ah ayaan ka faa'iidi doonaa trading waxyaabo badan adi. Dhanka kale haddii aan eegno waxaa la keeni doonaa wax la yiraahdo special loan campaign. Campaign-kan waxyaabaha ugu muhiimsan oo laga faa'iidayo waxay tahay in marka hore wajahada gameka aad sii galaysaba 7 maalin oo coins free ah in lagu siiyo 100 coins. 100ka 10 iyo 20 iyo 30 ayaa lagu qiiban doonaa. Dhanka kale waxaa lagu siin doonaa position trading ayaa lagu siin doonaa 7 maalin. Part 2 ayuu leeyahay special loan campaign-kan. Part 2giis waxaa lagu siin doonaa coinsyo aad u fara badan. Adi 7 maalin ayaa lagu siin doonaa coinsyo tiradooda gaaraysa 70,000 ayaa lagu siin doonaa. Dhanka kale haddii aan eegno bounties-ka 7 maalin oo xariir ah ayaa lagu siin doonaa. Mar walba oo gameka aad soo kacsato subax kasta oo gameka aad soo gasho ayaa hore lagaa siin doonaa. Dhanka kale haddii aan eegno waxaa lagu siin doonaa AS Milan Rule 1keeda ayaa la keeni doonaa 5 December. 5 waxaa waaye Khamiista oo beri ah. Haddaba xogtan wax ciyaar ah uma leeynin. Dhanka kale haddii aan eegno qaybta Benediga oo hadda aan ku jiro oo sidaan ay kugu muuqato rigoorada subax kasta marka aad tuurto waxaa lagu siin jiray firiyo iyo coinsyo iyo trading wax soomaha. Qaybtan kalena waxaa ku jira oo firiiga ah in la isiin doono ciyaaryaanadan oo ugu muhiimsan David Beckham iyo Adams. Qaybtan ayaa ciyaaryaanadaas ayaa IBG-da labadaas ugu muhiimsan Soomaha. Waxaa lagu soo dari doonaa 2 IBG oo sidaan u muuqan doonto qaybtan hoos la keeni doono. IBG-dan waxaa waaye Casillas iyo ninkan la yiraahdo Roberto Carlos iyo Casillas la keeni doonaa. Labadaas ayaa lagu soo dari doonaa. Dhanka kale haddii aan eegno waxyaabaha aan la qaadi doonin waxaa ka mid ah ciyaaryaanadan oo loo yaqaano ambassadorka. Ambassadorka waxaa waaye Lionel Messi oo 1800 lagu furanayo sidiisa ay u yaali doonaa ama u oli doonaa. Neymarna sidaas oo kale asigana lama qaadi doono sidiisa ayuu u oli doonaa. Waxaa lagu soo dari doonaa ambassadorkan ninkan la yiraahdo Suarez ayaa lagu soo dari doonaa qaybta ambassadorka asoo markaas asna 1500 ama 1800 lagu furanayo. Waxaa kaloo ugu muhiimsan waxay tahay ciyaaryaanada shalay waxaan ka tagay European Club-ka. European Club-ka waxaa ugu muhiimsan oo hadda la hadalhayo ay tahay 80% in la keeni doono ninkan la yiraahdo Mac Allister. Ninkan oo Liverpool ay ciyaaro ayaa la keeni doonaa. Ratingkiisana wuxuu ku bilaaban doonaa 95 wuxuuna gaari doonaa 100. Waa xogihii ugu muhiimsanaa ugu dambeeyay oo saacadihii ugu dambeeyay markaasi hawada haysto waaye. Haddii aad muuqaalka dhammaadkiisa aad nala soo gaartay please waxaan kaa codsanaa inaad muuqaalkan like saarto, channelkana subscribe dhahdo, gambaleelkana aad furato si mar walba xogta muhiimka ah halkan soo dhigno ay kuu soo gaarto. Mahadsanid.